goob baan la fadhiyey buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku hayay calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayay buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahay abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan baa ka mida buu tilmaamaya dadkoo dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaan allah leh ayuu abubakar u dhiibay abubakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abubakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay haddana cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abidar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantayna tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii horeo qura maaha taanu maqlaynay buu leeyahay markay abubakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cuhmaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilaynaa buu yidhi annagaa markii dambena loo dhiibay falam yusabbixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed iyo afartaa saxaabi waa meelahay culammada badhay ahlu sunnaha qaarkood baa u daliishada masaa'ilka khilaafada xadiidka nin kastoo uu ka durugsan yahay afartaa saxaabi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sacabkooda ayuu ku wada tasbiixsaday idan makhluuqaadka qaar baynu tasbiixdooda maqli karnaa oo ilaahay markuu doono ina maqashiiyaa bal abu hurayra xadiidka saxiixaynka ku yaalla uu warinayo waa kale nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka warramay nebiyada ka mid oo qudhaanjo qaniintay oo dabeetana amray buulkii qudhaanjada iyo meeshoo dhan in la gubo oo ilaahay kuu waxyooday markaasi ma hal qudhaanjaa ku qaniintay dabeetana waxaad halaagtay umma min alumami tusabbix ummad umamka ilaahay ka midoo tasbiixsanaysa miyaad halaagtay yacni lowlaa waaxida halla waaxida baa la yidhi xabadda ku qaniintuun maa dishid maxaad ummaddan oo dhan ayuha alaxiba tasbiixdan iyo taxmiidan daraaddeed ayaa tasbiixda 7 suuradood oo qur-aanka ka mid ah ku bilaabma siyaqa ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo masder iyo intabana waa ugu soo arooreen ilaahay subxaanaه wa tacaala fii suurati اlxashr iyo saf labada aayadood ugu horreeya dee waa isku mid sabaxa lilahi ma fi samaawaati wama fi اlardi wahuwa alcaziizu alxakiim ayay suurat اlxashrina ku bilaabmataa suuratu safna ku bilaabantaa suuratu اlxadiidna ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى يضع فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء يدو مستر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة تضبط السورة ضد القرآن ككمدة أي إلهي التسبيح دينا وقو بلابي سيلينو درينسية مهمة ديدا شن كمدة حمد لله دينا وقو بلابي دي الحمد لله رب العالمين يا نعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا الصبا يا محي فاطر شن سورة ضد كمدة qur-aankana xamdala lagu bilaabay inta meelooda kale ay ku soo aroortayna tira ma leh idan ayuha alaxiba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixda iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري محوض البضي وحاصرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كادل بي بولي هارون نين النبي يقدكته
walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira markay kaalmada dalbadeenee fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa maxaa fircoon markuu tegayay la yidhi walaa taniyaa fii dikri baa ilaahay yidhi fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniyaa fii dikri ha ka noogin aniga xuskayga subxaana allahi wabixamdihi laa ilaaha illa allah iyo wixii la mida kuwaa ha ka noogina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala